السلام عليكم أصحاب تقاليقة وحواي صبحا وصبح اسكهبية جبيقو آذو ومعي هاي وحقل دانو مجران لكن وحان إذن كوكو تلقالي كيلبير أو شيكا إنان إذن كوكو قصول سيا شيكا دا سدح نمي كوصاب سنين بريا كميدا حافظها مقالة مقدشة حافظ كميدا وحاكا دعدي تعسي داسنا intaan qofka la aasin ka hor waxa ka horeysa in gudki la qodo saddex nimo waxay ahaayeen oo dhaadhaamina oo dhasa oo laakiin khibrada gud qodowgaas kaliya loogu faa'iiday saddexdooda waxa la yiri idinka baxa unukana meedkan dhaqayna oon habeeyayna gudkaas noo soo qoda saddexdooda waa isdaba kaceen baangadahi iyo badiilkii wixii wax lagu qodayay qaateen waxa la aadamihii gudka laga qoday godkiyaa la tagay waa la bilaabay sida loo qoday godkii waa dhameeyeen mugli dhameeyay kadib roob yar yimid roobka yar mugoo yimid waa wada kudeen saddexdooda waxay sireen roobkan meelaad ugu gambatiin mahan ka jajarsa waa rooreen waxay tageen meel cali garooba waxay isdeen roobka ha joogsado saddexdii nimood mugay meesha cabaar ku jireen mid kamid ahaa soo booday wuxuu yiri niyahow gudka soo fiiri bal yow cara ka buuxsamine ama dad yimaadeen bal mahas naga soo daday midkii waa soo baxay godkii uu yimiday godkii mugoo yimid wuxuu isiri godka ciid yaraa amaha dabeesha ka keentay ka bixi ninkii oo godka ku jira nin kamid wuxuu isiri bal kii dhubow yiri usugu soo day bal ma usugay geeda la tagtay xariifka intuu godka soo socdaa dhagax yar jaksi dhagax mugoo jak ku yiri godkiyo madax u soo galay midkii ma ku jira halkiyo kuleetiga dhakab yiri wuxuu yiri mar rabbuk aniga ma ha ku halka dhinta ma soo socyaa waa la soo wadaa